waxaa aad maanta loogu farxad weyn in safiirka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya SRC-ga iyo AMISOM Force Commander taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka Mr. Swagle iyo saraakiisha sector 6 iyo sector 2 ee AMISOM ay maanta nagu soo booqdaan Kismaayo aad bay sharaf noogu tahay waxaan ka wada hadalay waxay ahayd koow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa gaar ahaan wadooyinka afmadow iyo Kismaayo in la isu furo iyo wadadan Kabsuumo iyo jidka howlgalkii laga gali lahaa hore operation soo jiitamayay in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacda oo amniya la isla sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaheeda amniga wax dhibaato ka jirana ayna lahayn wax badan oo propaganda oo aad Soomaalidu isticmaashanay wax sal iyo raad Soomaaliyeed ayna lahayn AMISOM iyo Jubbaland wixii hore uga dhaxeeyay waa ka dhaxeeya gacan ku haynta iyo meel cid gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay way ku haysaa electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxa laga sugayay inay tahay sidaan anagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah fair ah aan dhibaato lahayn aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa AMISOM ma kala maarmayno waxaan uga baahanay wixii danan marba laga soo gasha sidaan walba wada shaqeyn jiray oo wada shaqeynayna ma jiro wax cusub oo anaga AMISOM aan lagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro aad baad u mahadsantihiin arrimahaasna waxaan is leeyahay si fiican baan isaga afgaranay. So it is very important that the community and the people know that we are here to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country. wararka sheegaya in ciidamo AMISOM ah laga wareejiyay airportka laguna wareejiyay ciidamo kale oo AMISOM ah warkaas waa been. These are rumors. The structure, the way it is organized, the sectors where they are, they will remain where they are. qaab dhismeedka AMISOM iyo meelaha ay kala degan yihiin isma bedeli doonaan wayna u joogi doonaan sida ay hadda u joogaan ruux walba oo sheegaya wax kale oo aan ahayn warkaan aan idiin sheegayo been ayuu sheegayaa mana ahan in warkaas run loo qaato sababtoo ah dadka qaar waxay khubaro ku yihiin sida beenta loo sheego. Whoever says other things is a lie. Don't take it seriously because some of them are experts in lies. But I also told President Madobe waxaan u sheegay madaxweyne Axmed inaan jecelnahay isla markaana aan rajaynayno inaan aragno Jubbaland oo ay ka dhacdo doorasho xor xalaal iyo cadaalad ah una dhacdo si nabad ah waxaan sidoo kale u sheegay madaxweyne Axmed in shaqada AMISOM ay tahay garab istaaga iyo ilaalinta nabadda Soomaaliya.